الكمال الله ذو الجلال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير maanta runtii aniga maalin aad iyo aad u weyn oo farxad weyn igelinaysa waaye inaan baxdo imaado waa farxad dadkan inaan soo dhex istaago waa farxad kale dikri salaam in laygu soo dhoweeyena waa farxad kale ayadani culimmada aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaadna haystana waa intaan nimanku wiilasheennii ahaayeen laakiin wiilasheennii oo la khalday qalbiga iyo caqliga wax baas loogu shubay waaye inta ay waxaasi qalbigooda ku jiro waa cadow inta ay aaminsan yihiin waxa qalloocan ay aaminsan yihiin waa cadow kii ka soo noqda ee inta baraaruga soo noqda waxaa la hubinayaa inuu ka tanasulay wixii uu soo noqda laakiin waa wiilkeennii dibaad dalkaan dalan ahayn ma qabo dadkaan dadan ahayn ma qabo waa la khalday maantoo dhan waa u sheegnay in la khaldow haayay iyo in la khalday kii qaatay in oo fahmay oo in la qalday qaatay ee soo noqdana waa wiilkeennii kii qaadan waaye ee mabda'aasi maskaxda ku haystee aaminsan ee weli sii socdana waa cadow waana layska dhicinaa reer baxdo ayaga ayaa tusay shabaab in laga adkaa karo dadka hadda waayahan dambe weligeedna shabaab taariikhda 15 sano iyo jarjarkii ay dalkan iyo ummaddanba dhibayeen meelaan culimmada aanay yac ka dhihin yac lagama dhihin haddii ay galgaduud qaybaheeda kala tahay iyo haddii ay mudug tahay iyo haddii ay meelo kala tahayba meesha culimmadu ay u istaageen nimankaas qaladkooda in la diido ayaa laga diiday meeshii tabardarro ay qabatay oo maxaanku idhaahdaa wax u shaqay waayeen waa halkeeda laakiin codka keliya ee hor istaagnaa nimankaa ee yac lahaa ee maya lahaa ee ma jirto ee waa beentood lahaa culimmaday ahaayeen culimmada ma aha midda ay sheeganayaan ayaga qofku khamiisna waa qaadan karaa cimaamad weynna muxuu ahay korka waa ka soo huga karaa culimmannimo intaas ma aha culimmannimo waa waxaad dadkaada u sheegtood bartaa daliil u ah inaad nin caalima tahay in kale haddaad cilmi leedahood gurigaaga la seexato haddaad cilmi leedahood gurigaaga la seexato culimo ma ahayd haddaad cilmi leedahood ilaahaaga ku caabudood ku toosto nin taqi ahaad tahay ee culimo ma ahayd haddaad dadka inta soo hor istaagto waxa xunna aad ka celiso waxa toosanna aad u tilmaanto oo waddadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii aad dadka aad tusisid markaasaad caalim iyo callaama intaba aad tahay markii dadka la dulmina ee lagu edabdarroona ee intii diintu ay fartay in la ilaaliyo la ilaali waayo oo intii diintu ay fartay inay la reebo la reebi waayo hadda maalintaas waa maalintay muxuu ahay ninka culimmada ahoo saxda ay u baahan tahay maalinteedii aana ka soo baxdeen masaajidka ilaahay waa u jeedaa xabadaha ku yaallo hadba dadkan meesha jooga xabadahaas kuma dhufan masaajidka ninkaan masaajid qofkan ku jiro aanay ka ammaan helayn kii sujuudsan uuna ka ammaan helayn kii weesaysanaya aanu ka ammaan helayn
kii alla dartiis u socdo waddadiis iska maraya xataa oo waxaasoo dhanba iyo siyaasad iyo dagaal aanan ku jirin anuu ka ammaan ka helay haddee anuu ma aqaan wax runtii lagu tilmaamo 29kii bisha Oktoobar ee la soo dhaafay dadkii Zooba agaarkiisa lagu laayay dad dagaalama ma ahayn qoryo ma sidan islaan meesha muxuu ahay hilib ku gadaysa mid gaari gacmeed riixaayo oo moos iyo mambeelma ay u saaran yihiin oo iibinaayo arday wasaaradda tacliinta yimid oo shahaado raadsanayo mid baabuur meesha taagnaayo safar ahaayoo socday saaran oo safar ah sidiisaba mid maxaan ku yiraahdaa xaafadaha ka soo baxay oo bajaaj saaran oo asna jidka zaxmad yar inta ka gasho wixii 100 iyo jarjar qofood oo kamid ah dadka noocaas asaas sifahaas leh ninkii dilay ee weliba waad maqasheen hadda inta soo istaagay haddana dhahayaba wixii sax ayaan samaynay oo muxuu ahay ridaan wasaaradda ma gelin dadkeedii ma dhiman wax kama bi'in dadkaas musaafiriinta iyo saakay biilka ilmaha u soo doontay ee jidka taagna wax ku dhintay maxaa lagu micnaynaa sanad ka horna 600 oo qof meeshaas ku dhimatay 5 sano ka hor 600 oo qofooda hal subax ku dhimatay maxaa lagu micnaynaa dadkaas abriyada ah oo dhiigooda saas u daatay annaguna inaan fiirsano sana yeelaynaa waana telefonaal ii soo diray waa la idilaahay saan yeelaahay waa magaciisii aan dhahno waxaan u malaynayaa culimmadana waa joogtaaye meeshaas inuu dembi ka jiraan u malaynayaa maxay ahayd munkarka gacantaada ku suuli haddaad aragtood munkar u aqoonsato gacanta haddaad kari weydo carabkaaga iyo afkaaga ku suuli haddaad kari weydo qalbiga ka nac qalbi ka naciddaas maxaa la yidhi marka waa adcafu liimaan wadalika adcafu liimaan waaba karnaayo waaba kanaa waaba aragnaya maxaan qalbiga keliya uga nacaynaa waryaa naga tag maan dhahno waa kasnaa bes ma ahane waa karnaa kasid keliya oon la aamusannahay naguma filla waxa aan karno inaan qabanaan u baahannahay tusaale fiican oo marna naga nuxuusaya marna noo soo xoogaysanaya ayaad si kama dambays ah yaad muxuu ahayd daaha uga qaadeen khayr iyo ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo intii dhimatayna intaasaa shuhada ahe ilaahay jannadiisii ha ka waraabiyo inta dhaawacantana allah bogsiiyo laakiin waa dhimanayna waana dhaawacmayna ma dhihi karno markaan dagaalkan galna bisaa dhimashadu nagu bilaabatay nimanku dadka waa laaynayeen weliba tarab yani 100 iyo 600 u laayo waaya hal qof ma aha dhowaan magaalooyinka istaagay ee iska xoreeyay shabaabka wixii dawladnimada ay ku lahaayeen oo muddooyinka la soo dhaafo dhan ka maqnaa ilaahay idinkiis hadba intii suurtagala way soo gaari doontaa magaaladan guryo maamulka ah iskoolaad bara caafimaad wixii loo heli karo oo dawladdu maalin walba intay heli karta inay ula soo degdegto waa la suubinaya haddii alla yidhaah waxaan rabaa inta dhiman deegaanka galmudug baxdo aan maanta joogno markaan ka nimaado mudug ee galgaduud aan nimaado carrada dadkaani ay tirsanayaan inta badan maanta waa cadowgu waa laga xoreeyey dhiiggiinna iyo xooggiinna iyo maxaan ku idhahdaa dawladda labada heerood iskaashateen ayayna ku timiday laakiin galgaduud iyo galmudugba waa dhiman yihiin haddii shabaabku meel yar uu ka jirana inta soo cifow halkanna waa soo noqonaya waa imaanaya inaan xididda siibno waayo marka degmooyinka noo dhiman magaalooyin dhammoo waaweyn oo sidaanoo kale magaalooyin dhismay oo camiran ah ayaa cadowga naga haystaa barkaan jacar ka sii soco muxuu ahaaye ceelbuur galhareeri hore u sii soco ceeldheer maxaa galcad masagawaa dhul xaradheere oo inta ah u dhow ceel qooxle maxaan ku idhahdaaye ceel garas yani dhuloo dhan waa noo dhiman yahay marka
xeradaan haddaan ka bixinna dhurwaaga xerada inta kaa soo gala aad iska bixiday laakiin bannaanka taagane wuu soo leh arigaagu nabad ma aha arigaagu weli nabad ma aha ilaa dhurwaagaasi ama aad disho ama meel aanu ka soo noqon karin aad geyso nimankaasi meel aanay ka soo noqon karin iyo badda inay ku cararaanaan rabnaa ay baxaan marka deegaanada qaarkood waa dhow yihiin akhyaarta inta joogta xasuusaxiin dheeroo kale waaba kanaa waa muuqdaa ha la yidhi marka dhulku waa dhulkanagii haddii uu dheer yahay iyo haddii uu dhow yahayba laakiin ka dhowaan ka bilaabaynaa kan dheerna waa ku tegaynaa safarka 1 kilomitir aad uga socoto waxaa la yidhaha hal tallaabo ka bilowdaa tallaabada ugu horraysood qaaddow ka bilowdaa safarkii waa bilowda tallaabada koowaad tallabaad ilaa 1 tallaabo aad 1 kilomitir safarkii ah aad ku tagto waa guulaysanay li'anna xaqaan ku taagannahay diinteenna xaniifka ah waxa ay nafaraysaan ku taagannahay dulmi kuma taagnin been iyo huhaa sheegi mayn waa ku celceliya nimankaasi wadaadana ma ah diinna ma ah waa gruub maafiyo burcad waaye oo hugsaday mara diimeeday hugsadeen waxaan u baahannahay marada inaan ka qaadno dadku si u wada arko inay maafiya yihiin burcad inay yihiin dadku inuu wada arko walaal male ogaaw wiilkaad adeerka u tahay midkaad abtiga u tahay midka aad eeddada u tahay ama habaryarta u tahay ee shabaabka ah waa shabaab wiilkaagii maaha yaan lagu khaldamin sidaas aad iyo aad ayaan mar kale reer baxdow idiin salaamayaa idinkugu mahad celinayaa idiin bogaadinayaa idiinna ammaanaya insha allahu safarkii ugu horreeyey uguna dambeeyey ma noqon doonee waa idiin soo noqon doonnaa annagoona helikobtarra ku imaanayna jidka ku imaanaynaa idiin imaan doonnaa haddii alla yidhaha aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh